Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobka ugu xiisaha badan maanta ee wararka deegaanka TV kaasoo madaxweyne Farmaajo oo furay kalfadhiga toddobaad ee Golaha Shacabka iyo kan aqalka sare ee Soomaaliya. 6dii bishan ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo furay kalfadhiga toddobaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ku ammaanay guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada aqal wada shaqaynta wanaagsan ee ay muujiyeen sanadihii la soo dhaafay, taasi oo horseeday in laga midho dhaliyo dadaallada dowlad dhiska iyo dib u heshiisiinta himilada shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha oo dul istaagay shaqadii dhanka sharci dejinta iyo korjoogteynta howlgudashada xukuumadda ay la yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka rajeynaya si buuxda uga soo baxaan waajibaadkooda dastuuriga ee kaga aadan dimuqraadiyeynta dalka, gaar ahaan qabsoomidda doorasho hufan oo ay ka turjumayso rabitaanka shacabka. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay guulaha siyaasadeed, amni, dhaqaale, dib u heshiisiinta horumarineed ee ku tallaabsatay dowladda muddadii la soo dhaafay, isagoo tilmaamay sida ay uga go'an tahay in dib loo soo celiyo sharaftii iyo haybadii ummadda Soomaaliyeed ee ku lahayd caalamka. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda ay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho ku qabsoonta xilligii loo asteeyay oo fursad u siinaysa shacabka Soomaaliyeed inay doortaan mas'uuliyiinta ay ku aaminayaan hoggaaminta dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka inay gutaan mas'uuliyadda wadaniyadeed ee ka saaran go'aaminta masiirka dalka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladdu ay dadaal badan gelisay dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed iyo kor u qaadidda xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedyada, iyadoo la ilaalinayo xayndaabka dowladnimo iyo dastuurka dalka. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii adkeeyay difaacidda midnimada, madax-bannaanida iyo ilaalinta xuduudaha dhulka, badda iyo cirka Soomaaliya, isagoo xusay xiriirka dowladda Soomaaliya ay la leedahay dalalka caalamka inuu ku dhisan yahay is-ixtiraam, wax wada qabsi iyo iskaashi. Halkaasina waxaa ku eg qodobka maanta aanu ku dul istaagaynay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee Golaha Shacabka iyo kan aqalka sare ee Soomaaliya. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelkan, subscribe saar, kadibna gambaleelka furo si aad ula socotid waxyaabaha xasaasiga halkan aan soo dhigi doono insha Allah. Aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waa Deegaanka TV.